waxaan halkan kusoo gudbinaynaa warmurtiyeed shirka ka tashiga beesha Sacad horudhac waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay shir ballaaran oo ku saabsan ka tashiga beesha Sacad ee degta Mudug iyo Galgaduud taariikhdu markay ahayd 1 September 2024 shirka waxaa isugu yimid waxgarad odayaal dhaqameed ganacsato siyaasiyiin iyo xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug intii uu socdo shirka waxaa si mug leh looga arinsaday xaaladaha ka jira dalka iyo deegaanada beesha degta iyadoo si gaar ah loo gorfeeyay dagaalada nabadeynta ay socda iska caabinta duulaanka khawaarijta iyo tabashooyinka ka dhashay siyaasadda maamulka Galmudug shirka oo ay ka soo baxeen go'aano waxtar leh ayaa ugu baaqaya beelaha degta Galmudug inay iska wareystaan xaaladda amni tan siyaasadeed iyo midda horumarineed ee ka jirta deegaanada si loo badbaadiyo Galmudug isla markaana loo yagleelo nidaam doorasho go'aanada ka soo baxay shirka waxaa shirku cambaareynaya hadallada khiyaanada qaran ee ka soo yeeray qaar ka mid ah xildhibaanada federaalka ay ku taageereen cadawga ummadda Soomaaliyeed ee Itoobiya isla markaasna uga hor yimaadeen heshiiskii taariikhiga ahaa ay dowladda federaalka la gashay dowladda Masar ee awaalahanahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay u midoobaan difaaca dalka number 2 dowladda Soomaaliya waa dowlad madax bannaan sharciyad buuxdana u haysata inay heshiis iyo wax wada qabsi la gasho cidii ay danteeda ka aragto number 3 shirweynuhu wuxuu u baaqayaa maamulka Galmudug inuu ka fogaado wax allaale wixii keeni kara deganaansho la'aan iyo kala qaybin bulshada Galmudug taasoo dhaawici karta xasiloonida deegaanka weeqi karta dagaalka lagula jiro argagixisada burburin karta waawaanta laga dhaxwado beelaha ku dagaalamaya deegaanada Galmudug number 4 shirku wuxuu ugu baaqayaa madaxda dowladda federaalka in maadaama uu dhamaaday muddo xiloodkoodii ay hirgeliso doorashooyinka maamulka Galmudug iyo dhammaan maamulada dalka taasoo meesha ka saari karta hubanti la'aanta siyaasadeed ee dalka ka jirta number 5 shirku wuxuu ugu baaqayaa dhammaan beelaha Galmudug inay iska kaashadaan difaaca dalka la dagaalanka argagixisada qaabeynta hirgelinta doorasho waqtigeeda ku dhacda iyo nabadeynta beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanada number 6 shirku wuxuu ugu baaqayaa beelweynta Sacad in la xoojiyo xiriirka wanaagsan ee kala dhaxeeya beelaha Galmudug iyo Soomaalida kale loona guntado sidii Galmudug loogu soo dabaali lahaa heshiisiin isfaham iyo kalsooni buuxda oo u noqota deegaanka dhaxalgal ugu dambeyn shirku wuxuu ku heshiiyey diyaarinta gogol looga hadlayo aayaha beesha Sacad oo ka dhici doona magaala madaxda gobolka Mudug ee Gaalkacyo waqtigana dibaan ka soo sheegaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.